بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waa xarunta la talinta dadka iyo horumarinta shaqada Dictor Safin walaash in la hadlaysa waa Dictor Safin walaalayaal maanta waxaan rabaa inaan soo gudbiyo barnaamijyo maartay aad iyo aad xasaasi oo aad iyo aad isleeyahay maanta bulshada dhan ee Soomaaliya waxba u tari karaa. waxaan rabaa inaan soo gudbiyo waxaan aragnaa wax badan in maartay wadankii qasan yahay, dagaal ku qasan yahay dhinac kastaba. waxaan kala aragnaa bulshaduna ay aragtaa inta badan in maaragtay qabiil uu jiro oo meeshii qabiilkii iyo maaragtay dagaaladii la kala aqoon la yahay. waxaan kala aragnaa in Soomaaliya loo tashaday oo maaragtay markii uu horeysana qabiil loo kala qaybshay oo magacyo loo kala yeelay oo hadii Ilaahay ku reeyay aan wax badan xataa aragno kuula iyo balaayo oo la gadahayo wadamada laga gadahayo kan waa reer hebel kan waa reer jilib dadkii loo kala dhigdhigayo. waxaan kala aragnaa maaragtay in maantay qabiilkiina batay, dagaalkiina uu batay, dadkii isnacaybka uu batay. marka halkaas oo kale markay marayso dad kale haddana waxaa jira maaragtay hawshii wada oo maaragtay dadkii isku soo dhaweynayo oo meediya ha ahaato, dhul ha ahaato, dawlad ha ahaato, dadkii isku soo dhaweynayo oo dadkii isku wada. laakiin kuma filna. marka waxaan leeyahay intaas waxaan leeyahay lagu sii daro oo lagu soo kordhiyo in maaragtay bulshada la wacyi geliyo oo qabiilkii laga wacyi geliyo oo dagaaladii maaragtay intii ka hartay laga wacyi geliyo in dalkan Soomaalnimo waxaan ahayn aysan waxba tareyn, dalkan inuusan u baahnayn kala farageliyo foodgelin. waxaa kale oo meesha arkaysaa in maanta la dilahayo dhalinyarteeni Soomaaliyeed, la isku dirahayo, qaarna la dilahayo oo midka adiga aad dilaysid iyo midka ku dilahayo labaduba ay hooy wada dhaleen. taasna waan aragnaa, waana meesha foolxumada ugu liidata oo maanta anaga haysata, dhibaatada haysata waay. marka waxaan rabnaa kaliya uga bixi karnaa wixii nagu dhacay waa nagu dhaceen, laakiin in wacyigelin la sameeyo hay'adaha bulshada aad iyo aad wacyigelinta ay u badiyaan. intii maaragtay ku magac leh oo hay'adaha wacyigelinta ku magac leh oo arrimahan ku magac lahna inay dadkan aqoon-yahanka ee wacyigelinta aad iyo aad u yaqaana ay aruuriyaan, tala badan ay dhiibaan, meel la iskugu geeyo, wacyigelin la sameeyo. ayadoo wacyigelintaas laga samaynayo in qabiilkii xaqiisa laga samaynayo in maaragtay dhalinyarta dadkan isdilahayo walaalaha labada dhinacba isdilahayaan ay gacan shisheeyo ku dhex jirto oo la isku dirahayo in maaragtay kala furfurkan iyo maaragtay ishaysigii Soomaaliya magacii sharafta badnaa ee Soomaaliya calankii la kala furfurayo in maaragtay dagaaladan jira dadka kuwa hadda walaalaha kuwa maaragtay nala ku soo diray mixnada dhulka lagu soo tuuro dadka dhiigoodii balaayadooda cunahayo iyo Soomaalidii kale ay yihiin laba wada dhalatay. marka intaba waxa dhinacyada kasta kaaga dhimanaya waxa waaye waa labadii wiil wada dhalatay. marka in qolo walba ogaato in dagaalku uusan wax faa'iido noo lahayn, maantana aysan jamhad iyo hadii Ilaahay urur maaragtay oo hadii Ilaahay ku reey dadka laaya uusan wadankan uusan waxba u taray, waxna uusan ka qabanaynin, ee dadka dhiigiisa banaysta inuusan waxba ka qabanaynin. marka waxaan rabnaa in maaragtay dhinac kastaba aqligu uu shaqeeyo, maskaxdu shaqeyso, wiilasha iyo dhalinyarada iyo dadka iyo hooyooyinka iyo aabayooyinka la leynayo oo labada dhinacba la baabi'inayo in maaragtay sidii looga hortagi lahaaba laga hortago. kuwa wax dilaya oo dadka dhiigooda banaysay laftigooda inay fakarkooda ay maaragtay waxaan aysan ahayn wax fiican, in hooyada la dilo, aabaha la dilo, dhulkaagi la baabiyo, adiga qolo kugu soo dirto inaysan wax fiican ahayn. diin meeshaan uguma jeedno oo maaragtay dad la iskugu dilayo. anaga muhiim waxa noo ah wadannimada iyo dalkeena iyo diinteena inaan u dhimano, dalkeena inuu xoogaabo, hal qura inaan noqono, Soomaaliya oo qura inaan noqono. intaas muhiimadu ah. magaca Soomaali ma ka harayo, meel kasta istaag, meel kasta fariiso, ma ka harayo. waad aragtay ma ka harayo. gabadhan waa Soomaali, wiilkan waa Soomaali, habartan Soomaali leeyahay. waxaan leeyahay marka Soomaaliyay guuleysta hala socdo. dadka arrimahan ku shuqulana waxaan leeyahay hala aruuriyo, wacyigelinta hala sameeyo, arrimahan hala aruuriyo. dad badan oo cilmi leh wacyigelinta aad ugu fiican hala isku keeno.
هلا أروريو ضدك شغل كلها نكون شيء أنا شيء سياسي سارد أرمها جدها دولة دان مارتي قبل كبنادر إن مارتي ملك استبى هذي عيدا تهاي هذي شعب تهاي بقى وعي جلين تلاقى سمايو ضدك اللي سكوك أنا ضدك ضوضها اللي سمايو إن عن ضن دولة نما أنا هين أيسن وجشرين دولة نما وحنا هين أيسن ضن وجشرين إن وحنا ربع الله كانوا قبيل كمالك السمان تكتشق عقله أو قرن كأه إلا بابيو dadka laynhayo oo dadka isku dirayo baabi'inhayo dadka nagu arimahan mashruucyada lagu soo qaatana meelahaas in la cirib tiro mashruucyo badan baa la soo qaatay dalkan wax badan baa lagu soo qaatay burbur iyo dagaal iyo balaayo iska qax baa lagu soo qaatay war anaga in xiskeena dib u shaqeeyaan rabaa Soomaaliya dib aan u shaqeyno dhalinyaro aan dib u shaqeyno waayeelow dib aan u shaqeyno dadkana soo dirahaya oo dadkeena isku baabi'inhayo mashruucyada lacagaha na siinhaya oo hadba kiis naga soo galahaya waan naqaana waan ognahay qof walbana aqli maanta oo leeyahay sidii loogu hortagi lahaa iyo si wacyigelin loo sameyn lahaa intaas ayaan rabaa inaan oo yaro kooban inaan uga hadlo barnaamijkayga maantay hal horaha loo socdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh